بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu tahay 25 bisha November 2019 waxaan rabnaa inaan halkan kula wadaagno shir jaraa'id oo aan uga hadlayno xaaladda ay marayso maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. guddiga farsamada iyo maamul dhisidda Galmudug wuxuu rabaa inuu la wadaago bulshada reer Galmudug hanaanka soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabnaa marka inaan idin sharaxno oo aan in la wadaagno qaabkii howlahaas ay u socon lahaayeen iyo sidii shaqadaas loo qaban lahaay. marka koowaad waxaan rabnaa inaan maaragtay bulshada reer Galmudug aan uga mahad celino dulqaadkii iyo wada shaqayntii ay noo muujiyeen intii hawshan adag aan ku jirnay oo ah dib u dhisidda dowlad goboleedka Galmudug. waan dareemi karnaa inay dad badan dhararsanayeen hawl culusna ay noo taalay, laakiin waxaan mar kale iyo mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad uga maaragtay mahad celinaynaa aanan garawsanahay oo aan fahamsanahay maaragtay dulqaadka iyo wada shaqaynta ay noo muujiyeen intii aan joognay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. markii laga tago taas waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo nagala shaqaysay oo maaragtay gacan naga siisay dowladda federaalka iyo beesha caalamkaba. shaqadan aan soo wadnay in muddo ah haddana noo maraysa meel dhexe aan rajaynayna inay noogu dhammaato si wanaagsan oo khayr ah. markii laga soo tago mahadnaqaas dhammaan waxaan ku wargelinaynaa hoggaanka dhaqanka ee beelaha Galmudug marka koowaad inay yimaadaan caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ugu dambeyn maalinta Arbacada oo ay taariikhdu tahay 27 bisha November 2019. sidaas daraaddeed iyadoo la tixraacayo dastuurka ku meel gaarka ee dowladda federaalka iyo dastuurka dowlad goboleedka Galmudug, guddiga farsamada iyo maamul dhisidda Galmudug wuxuu soo dejiyay qorshe howleedkii lagu shaqayn lahaa inta ka dhiman dhamaystirka hawshan aan halkan u joognay. qorshe howleedkaas waan la wadaagaynaa isagoo qoraal ah, halkanna waan idinka akhrinayaa asagii oo maaragtay faahfaahsan. laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha November ilaa 28 bisha November 2019 waxaan ka shaqayn doonaa oo aan xoog saari doonaa xaqiijinta odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Galmudug. sidaan hore u soo baaqnana aan ka codsanay inay maaragtay ku yimaadaan laga bilaabo maanta ilaa maalinta Arbacada oo ay tahay 27 bisha November. marka qodobka labaad 29 November ilaa 30 Decemberna waxaan ka shaqayn doonaa soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug. 10 December ilaa 12 Decemberna waxaan ka shaqayn doonaa howlgelinta golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaan ka shaqayn doonaa haddii alla idmo. qodobka afaraad 13 December ilaa 16 Decemberna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada guddoonka golaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. qodobka shanaad 17 December ilaa 23 Decemberna waxaan ka shaqayn doonaa doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug haddii alla idmo. intaas waxay noqon doontaa qorshe howleedka aan qaban doono iyo iskajoolka noo degan laga bilaabo maanta ay tahay 25 bisha November ilaa laga gaarayo maalinta ugu dambeysa oo ah oo aan ku dooranayno madaxweynaha 23 December 2019. sidoo kale anoo fursadan ka faa'iideysanaya guddiga farsamada iyo maamul dhisidda dowlad goboleedka Galmudug waxay bogaadinayaan oo ay soo dhaweynayaan ayna ka rajeynayaan maadaama in muddo ah aan sugaynay oo aan wax xayirnayn intaan ka badan aan la xayirnaa karin dowladda federaalka iyo culimada ahlu sunna wal jamaaca in ay arrimahooda ku dhameeyaan wada hadal lana xaliyo wixii khilaafaada oo jira. intaas ka bacdi waxaan mar kale fursadan uga faa'iideysanayaa in hay'adaha ammaanku ay shaqadooda qabsadaan kana shaqeeyaan sidii ay hore uga soo shaqeynayeen sugidda amniga oo ay xil gooni iska saaraan xilligan lagu jiro kala guurka oo ay xaaladuna xasaasi tahay. waa mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.